gabadhaasi waa gabadhii walaasheen ahayd ee maalintii ay ka qaldantay ee tiri diiriye wuxuu iibiyaa wax dhacay ama caano dhacay buu iibiyaa runtii maanta halkan waxay u timid iyadii walaalkeed iyo iyadii iyo odaygeegiiba iyo abtigeedba inay raaligelin buuxda ka bixiyaan inayna waxaas waxba dhicin iyadaana inoo sheegi doonta halkaa waxay ku miyaa wax dhacay lagaa iibiye miyaa wax dhacay lagaa iibiye miyaa wax dhacay lagaa iibiye wax dhacay lagaa iibiye soo bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno gabadh muslimad ah oo miskiin ah oo Somaliland caana intii dukaan ka gadatay caanihii markay gadatay ay aragtay inay dhacsan yihiin ayaan doonaynaa inaan ka hadalno iyo gabadhii sida maartay xurmadeedii loogu tacadiyay ee lagu gabad falay intii la soo khasbay la keenay public la keenay oo la yiri hadal inay caanuhu ay asnayn sidaad ogtihiin Soomaaliya mushkilad weyn ayaa haysata Soomaaliya waxa ka jirta 6 maamul ayaa ka jira 7 maamul ama dhax ayaa ka jirta xataa dibanaad lagu daro waxay noqonaysaa ilaa 8 maamul ay noqonaysaa marka sidaa darteed maamulada inta dhan waxa ka jirta mushkilada weyn maamul madax leh oo madaxweyne ku xigeen leh oo golo wasiir leh oo golo xildhibaan leh oo agaasimayaal leh oo agaaswaxdiye leh oo kala shaqeeyo oo ciidamada leh oo sirdoon leh ayaa waxa jirta in la keeno cunno dhacday laga soo waarido dibadda hal laga soo waaridee dawladdu ama waxay leedahay wasaarad la yiraahdo tayadhowr waxa nasiib darro ah wasaaradda tayadhowrka ah ama ciidanka nabad sugidda ahaa in aysan qabanaynin waxyaabaha dhacay ee la keenay laga soo waarido dibadda marka maanta oo ugu dambeysay wad arkiiseen gabadha miskiinta Soomaaliyeed inta ay dukaan timid dukaankii caano koosta ay rabtay ka gadato ay aragtay caanaha inay dhacsan yihiin yaa waxay tiri faaraha caanaha way dhacsan yihiin waxa dhacay marka caanihii gabadhii marka hadalkeedii inuu gaaray daafaha magaalada markuu gaaray hada ninkan waa nin khaa'in oo eg oo dadka Soomaaliyeed diir nixi aanu ugu yaalin oo u keenaya wax dhacay u keenaya sida darteed gabadhii waa laga dib markay caani ka tagtay waa la raadiyay dukaankii dadkii iska lahaa raadiyay way raadiyay wax kaga daba tageen hoyga gabadha magaalada ka tagnay gabadhii wax la sameeyayba waa la soo qaaday waxa la keenay dukaankii ayaa la keenay waxa la soo khasbay dabcan halka waxa garan karta gabadh markay hadlayso in aysan diyaar u ahayn inay ka hadasho waxay aragtay marka waxa lagu khasbay oo isku soo afgartay oo lagu soo qanciyay inay public dadka intay soo ristaagtay tirada caanihi ma dhicin markaas waxa lagu leeyahay oo la dhahayaa war caanihi may dhaceen markaas iyadoo iska aamusan madluumad ah oo dulaysan oo garanayso gabadh in maartay gadaal laga jiro ay leedahay raalli ahaada ay leedahay oo lagu celino caanaha may dhaceen ay leedahay raalli ahaada hadaba waxaan doonaynaa in hadda ka hor nabiga calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay annagu dad muslimiin ayaanu nahay cidda kaliya aan ku dayanayno een ka dambayno waa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam maadaama nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam uu yahay qaa'id hogaamiye noo yahay muslim ah muslimiin aanu nahay annagu asalan ku dayanayno oo ilaahay quraanka ku leeyahay laqad kaana lakum fi rasuulillahi uswatun hasanatun waxa inagu sugnaa dayasho wanaagsan ninkii aakhira la kula wanaagsan sugaya waa in nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam uu ku dayo magaalada Madiino ayaa waxa ka dhacday hadda ka hor markuu nabiga uu joogo alayhi salaatu wasalaam in nin ay ku timid raashin xalay roob ku daay qaybta qoyadeed buu hoos mariyay qaybta qalaleed buu kor soo mariyay nabiga alayhi salaatu wasalaam
طبعا تيدور أيوها بدقبك أمضى أيو مارتي كشقينا هي سوق سلا وصامري أما وحي هالوشيغو أما يلوشيغ شك حدعو نبي الله كراسي كجرا أيو قعنت قال عليه الصلاة والسلام مركز قعنت سوحي قادي قيان مركز وحكي وريه وحن قيان قعنت أي قادي بحيتها مركز وحكي رسولك إله إلا النبي إله بينه وشيكر هي الوحي بدأ مركز وحكي رسولك إله حالة خوب أيا كداي marka wuxuu ku yiri oo uu jawaabay dabcan haduu roob ku daay maxaad korka u soo mari weeyay dadka ha arkeen oo wixii ninkii rabana uu u gato ninkii doonay isaga tago markaas wuxuu yiri dabcan halka waxa ka xadfan hadal ka xadfan nin ganacsada ah waxun inuu dadka u tusamo banaano ma haboono oo indhaha ayaa ka diidaya markaas nabiga kaleey salaatu wasalaam ninkii na khayaano oo na dhakra annaka naga mid mo من غش منا فليس منا نكي ناقشة أو نخيانية أو ندمدابية أو بين أبور وحفاقر نو كان أو مطلع أو كان نقمد ماها أيونا النبي عليه الصلاة والسلام صادرت هاد ما دام أنا نهي ضد مسلمين أنا نهي ويل كان هذا أنا دعي أيو كاني هك كان ضدك أيو كو حين هي مشاكشة هاجن وحكجر تم ضلك الصومالية إلا كانوا راشين دعي لقانا كان دلك الدباديسة هايديه الدوقلك أما السرطانك هذا أما هذا وزارة دي تيدورك إني ستان كلاهين هاوشاسي إلا كانوا برد عي أو إبراز قنتماء المشين لو كانوا ديب لو ريقو جوان ريد عصب قرانيها لوريدو راشينك مركز أداميسو وياه وح aad iyo aad u uraya oo nafta aysan aqbalin laakiin dadka muslimiinta Soomaaliyeed dadna oo maqno ceel oo maqodno marka wuxuu Ilaahay ku saliday maamulo noocyada kala duwan oo cadaab ah ayuu Ilaahay ku saliday Ilaahay ayaa u maqan sida darteed hadda waad u jeedaa waxaan xasuustaa magaalooyinka Soomaaliya kamid ah yaa waxaan raashid dhacay baa la qabtay وزارة تيدورك يا قبطي قارها قيبتها نما السوقدة يا قبطي راشينكي نيكي وحوير هرقي ودي والله الله اس افقرت بها كان عاي مدونا هنا هو مقالة فلان مدونا يي مركا راشينكي ددك يا لا قضيا راشين دعيوية سيدا درتهد مامول قبليدا اما دولة فدرالكا waxay ku fashilmeen ilaalinta ama badqabka shacabka ay madax baan u nahay ay leeyihiin ay ku fashilmeen sida darteed dadweynaha wax u maqan ma jirto maxaa koosgareeyay dadweynaha inay ka qaxaan dalka inay ka qaxaan oo ilmahooda dibadda ay leeyaadaan ma jiro wasiir ama agaasime oo u joogo ilmakiisa ah meesha u joogo ma jirto dalka dibaddiisa ay dhamaan ilmahooda geysteen